su-aasha ugu horeysa waxa soo qoray walaal dabadda jooga waxa uu leeyahay nidar ayaan galay inaan 3 cisho soomo iyadoo aanan wali 3 cisho soomin ayaa bishii ramadaan ay soo gashay marka ramadaantii kadib dhowr cisho ayaan soomay buu leeyahay oo aan bilaabay marka ma waxaan horsoomayaa buu leeyahay 3dii nidarka ahaa mise waxaan horsoomayaa qalihii ramadaan wuxuu leeyahay qalla la igu yeeshay dabeetana maqalihii baan soomayaa mise nidarkii baan horeysiinayaa su-aasha labaad gabadha ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh rubadka ayaa inta badan xanuuna waqtiga ramadaantii horena waxaa la igu lahaa 15 cisho oo ma aanan soomin markastoon israahdo soonna xanuunkaasi uu igu yimaadaa dhakhtaradiina waxay ii sheegeen inaan negative ahay oo aan waxba la igu lahayn waxba aanay haynin marka 5 cishaan 15kii ka soomay 10 ka soo hadhay fidyo ma bixin karaa bay leedahay su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh wadna xanuun ayaan leeyahay marka aniga oo sooman haddii wadnuhu iyo xanuuno miyaan afurayaa dhinaca kale waxa uu leeyahay maalmaha ka mid aniga oo sooman ayaan dhacay dabeetana ardaydii jaamacadda ila dhiganaysay oon ogeyn inaan soomanahay ayaa waxa ay siiyeen biyo marka miyay iga jebinaysaa soonkaygii buu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد سؤال شهرين نذرك يا رمضان كيف له الرئيسين يا رمضان له الرئيسين يا وقت كان عبادتنا وعبادة مضيقة وليست موسعة ما هم وقت يدو وحول بأقبل كره صومك كليه بشهر رمضان يقبل يسا ورمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القاسي آخر ذي لها يحلو فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان بلو صومي كرا كدبنا نذر كاسات آيات صومي دونتا مركا رمضان لقى بحوه قالها هي النذر كهدي الله يدعانا لبدا كاتونتا ثريستين كرتا قالهنا دق maaha nadarkuna waad horeysin kartaa waana dibdhig kartaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa war rabadaanta waqtigeedu jooga imaka labada su'aalooda kale waxay la xidhiidhaan bukaanka iyo ramadaanta qofka bukaanka ahi hadduu soomi kari waayo wuu iska cunayaa mar hadduu buko ramadaantuna soomkuna dhibayo wuu iska cunayaa wuu iska afurayaa sida quraanka bay ilaahay uu ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala waanu soo qalaynaya intii maalmood ramadaan ka tagtay in leeg hadii ay u suuroobi weydo inuu soomo ramadaan qalihiina u suuroobi waayo cudurka daraadi raashin buu bixinaya maalintii walba 1 kiilo 30 cisho 30 kiilo 29 cisho 29 kiilo saasuu wadaya marka bukaan la rajaynayo inuu ka bogsado iyo bukaanaan la rajaynayn inuu ka bogsado labadaas baa loo kala qaadaa ka xanuunkaagu yahayna adiga sheegi ama rubadku ha ku xanuunayo ama wadnuhu ha ku xanuunayo labadaa mid u badgalaysa adiga iyo dhakhtarku marka isla eegtaan ama qalla ku suuroobiyo waad soo qallay haddii soomkii waqtigiisu la joogay iyo qallihii midna suuroobi waayo raashinka loo guuray jazakallahu khayran fadiilatu sheekh qaybta labaad ee su'aalaha su-aashan koobaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh anigoo aan daahir ahayn quraanka dusha ma ka akhriyi karaa ama ma dhageysan karaa talabaad aayadaha adkaarta ku jira sida adkaarta subaxii la akhriyo iyo aayatul kursiga oo kale saasoo kale ku jira iyaga ma akhriyi karaa bay gabadhaasi leedahay su-aasha labaad ardayad baa soo qortay waxay leedahay sheekh markaanu aqoonta ku tartamayna casharada dugsiga ee nalooga baahan yahay degdega ma soo gaabsan karaa salliga nabiga kaleey salaatu wasalaam marka aan qorayo anigoo xarafka saad kaliya u soo gaabinaya ma soo kaabin karaa ay leedahay su-aasha ku xigta nin ayaa soo qoray waxa uu leeyahay sheekh waxaan ku noolahay dalalka galbeedka waxaana meesha aan deganahay aad ugu badan kiniisadaha iyo meelaha ay gaaladu ku cibaadaystaan haddii aan galo kiniisad diinteyda miyay wax ka soo gaadhayaan anigoo doonaya inaan soo daawado iyo waxyaabaha la midka ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ruuxa dumarihii markaanay daahir ahayn ama qofkuba dee uu jinaabo qabo mas'ala khilaafiya weeye oo mas'ala ay culimadu isku khilaafeen
qur-aanka kariimka inuu akhrii karayo in kale laakina jumhuur culamaa calaa khilaafi culimadu intooda badani waxay qabaan calaa an laa yaqra' inaanu qofkii qur-aankii akhriyin kitaabkiina taabanin sidaa daraaddeed waxaynu leenahay dee baahi adagoo kuu qabata mooyaane sida adigoo imtixaan ku jira ama qofkii qur-aankii ilaawayo xaaladaha mooyaane inuu qofku iska daayaa wanaagsan dikriga kii u qaalisanaa weeye qur-aanku layskumana khilaafsana dikriga inay wanaagsan tahay marka uu qofku daahir yahay daraaddeed dahaaradaad la eegan insha allah kolka rasuulku sala allahu calayh wasalam magaciisa lasoo qaado waa in lagu saliyaa sala allahu calayhi wasalam taasi waa markii dee afka laga dhawaaqayo laakiin markay qoraal noqoto miyaa la dhammaystirayaa mise waa lasoo gaabsan karaa sida fiicani waa in la dhammaystira bay leeyihin culimadu ikhtisaarkuna wuu iska bannaan yahay inaad soo gaabiso saadku soo gaabiso siduu imaamu axmed samayn jiray raximah ullah laakiin waxaa ka fiican in la dhammaystiro kaniisadda inaad iska daysaa wanaagsan haddaad gelaysana dadka ku jira inaad hanuunisood waxu sheegto ayuunbaad u geli kartaa laakiin inaad dalxiisto iyo inaad daadaawato waaba intay ku jiidataaba waa wax naftaada soo jiitaa oo ama lagu xayeysiinayo ay meesha ka jiraan ama lagaa qaniinaba intuba waa suuragal marka inaad iska daysoona tegin ayaa wanaagsan ama aan diintaadu laakiin waxba noqon mayso kale haddaanu qofku gaaloobin oo aanu ku tukanayn diintiisu waxba noqon mayso laakiin daawashadeedu sax maaha inaad iska dayso weeye